munaasabad siyaasar loo soo gaarsiimay wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad kula hadlayay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkan Suudaan ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadda ardayda salaadiin madaxda ururka ardayda Soomaaliyeed iyo waliba diblomaasiyiinta safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalka Suudaan iyadoo ay soo qaban qaabiyeen munaasabadda ururka ardayda Soomaaliyeed ee ku midaysan jaamacadda Afrika oo horeynta aysan bilaaban munaasabadda ayaa wasiirka iyo wafdigiisa waxaa goobta ku soo dhaweeyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Suudaan Cabdulle Xasan Xuseen Fadiilatu iyo Fiido Maxamuud Fiido oo qaybsanaa warfaafinta safaaradda caawad aan ku hadlayo magacayga magaca jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan waxaa sharaf weyn noo ah inaan soo dhaweyno wasiirkeena Axmed Ciise Cawad oo runtii reer Suudaan nala ahaa aan xasuusto runtii in kowga luuliya uu nagala qayb galay hadda ka hor iyo marar fara badan baa sadaaqa runtii waxay noo tahay sharaf weyn oo caawa ardayda uu kula hadlo qaacada jaamacadda Ifriqiya dhammaan kasoo qaybgalka dhammaantood si guud ayaan salaamaynaa habeenkan caawa anoo magaciina guud ku hadlaya waxaan soo dhaweynayaa wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Axmed Ciise Cawad maadaama uu sijilay oo hadda dhigto doctorimada waa ku jira sida dadka laftarkii u tiimtaan jaamici jaamacadina u seeda sidoo kale Mustafa iyo xududda iyaga laftarkoodana waa soo dhaweynaynaa maadaama ay wafdiga la socdeen wasiir Axmed Ciise Cawad ayaa waxa uu fudii hore ugu dawan yahay in muddo 10 sano ah uu ku soo shaqeeyay dalkan Suudaan isagoo ka warhaya xaaladda jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Suudaan dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo khudbad dheer ka jeediyay goobta ayaa ardayda Soomaaliyeed ugu warbixiyay xaalka dalka uu marayo iyo horumarka ay ku tilaabsay dowladda Soomaaliya sigoo ardayda Soomaaliyeed ku dardaarmay inay sii wadaan dadaalkooda waxbarasho maanta dalkeennii horumar badan baa ka socda dowladnimadeennii xoog bay u soo noqotay dadaal fiican baa socda xamar maanta qofkii taga ama gobollada kale oo Soomaaliya tagaa wuu yaabaya markaa banaanka joogtid waxaad maqlaysaa qof isqarxiyey oo dhowr dad dilay si kastoo ay u xun tahay haddana intaasaa tilmaantii u noqonaysa laakiin haddaa magaalada xamar tagtid maanta horumarka ka socda dhalinyarada idinkoo kaleeta dadaalaya jaamacadaha ka socda waxaan kula talin lahaa inay ilaahay u mahadnaqdaan waalidkood u mahadnaqdaan reer Suudaan u mahadnaqdaan dabadeedna ku dadaashaan in aad waxbarashadaas natiijo ka keentaan Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inuu maanta soo gabagabeeyo booqasho 4 maalin qaadatay oo ku joogay dalkan Suudaan Yuusuf Maxamed Bacaliis Kashmiir raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan